بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا معهد كإيجار سوماليا جبتركي لحاد training and development تيجا oo aan kamid aha maadada human resource management aan rabnaa inaan maanta isla fiirino chapterkii hore waxaan ku soo qaadanay waxay ahayd recruitment-kii iyo selection-kii oo ahaa in qofkii booski banaana la chapter ahayd qofka markii la qaato development-gana waa orientation kii ay rabeen inay ka waxa kamid ah siyaasadihii maalinlaha organization uu qabato waxii ay dhulgar exit oo kale meelaha regulations waxyaalaha ugu fiican markuu dahansiyo ay yihiin orientation waa process cusub oo process lagu barayo shaqaalaha cusub basic skills they need to perform their job shaqada ay qabanayaan maxay shaqada ku qabanayaan xirfad noocee bay u baahan yihiin shaqaalihii cusbaa waad keentay uu yaqaan qaabka wax loo xisaabiyo uu yaqaan qaabka loo sameeyo maxaan ku raahdaa ii sheeg xisaab xirka laakiin waxa baraysa skillski loo baahnaa exactly in halka looga shaqaaleysiyo training wuxuu yimaadaa selectionka iyo hiringka kadib shaqaalaha markii la shaqaaleysiyo oo la doorto kadibna la shaqaaleysiyo shaqaalaha cusub waxa la siiyaa training existing employee na markii ay tagaan shaqo cusub ama shaqadii ay joogeen ay u baahdaan inay xirfadooda korsadaan waxa la siiyaa tababar baa la siiyaa sida awgeed baa tababarka wuxuu yahay labada dhinacba shaqaale hore u joogay iyo shaqaalaha cusub ah hadda qaadatay labadaba ay ku anfacaysaa strategic content of training trainingka siyaasad ahaan iyo xeelad ahaan xagee bay ka soo galaysaa yani qaabkee baa loo fulinayaa trainingka markii la rabo in maxaan ku yiraahdaa ii sheeg strategic performance-gii strategic maxaan ku yiraahdaa ii sheeg payment-gii strategic training-kii xagee uu maraya strategic training-ka markii training-ka la rabo tababar markii la rabo shaqaalaha in la siiyo waxa khasab inaan leenahay performance appraisal ama performance management qaab lagu ogaado shaqaalaha shaqadii inay qabanayaan iyo inaysan qabanin marka shaqaalaha shaqadii haday qabtaan waxa la rabaa shaqadii ay qabanayeen inay u qabtaan towards the goals organizational goals organization-kii hadafkii uu lahaa in ujeedka uu yahay sida awgeed baa maxaan ku yiraahdaa ii sheeg shirkadda ay u qabanaysaa qaababka ay u qabato waxa kamid ah iyadoo website based training ama web based training qaab website tababar qaab website ah waxa kale ay ku bixin kartaa trainingka distance learning based training qaab waxbarasho fogaaneed yani adoo aan class xaadirin sida hadda anaga aan ku dhigano oo kale ta galaasyada trainingka in lagu baxsho cross cultural diversity training in isbed shaqaalihii la isdhexgeliyo cross cultural waxa la yiraahdaa tusaale ahaan adigoo Soomaaliya in tababar lagu geeyo meesha le Rwanda oo kaleeto ninka Rwandiiska aan Soomaaliya tababarka loo keeno oo dhaqamadii ay isdhexgalaan tababarka noocaasa ba la yiraahdaa cross cultural training process-ka la marayo waa 5 nooc way marka ugu horeyso horta tababar ma loo baahan yahay waxaad eegaysaa tababar in loo baahan yahay need analysis waxaad eegaysaa tababarka loo baahan yahay waa nooce in waxaad eegaysaa maxaan ku yiraahdaa ii sheeg in shaqaalihii ay haystaan shaqadii ay ku tababaran lahaayeen waa in la helaa maxaan ku yiraahdaa ii sheeg waa in ay jirtaa baahi waa inay jirtaa mid walba dul istaagana instructional design waxa laga rabaa inaa qoondeysid ama aad qaabaysid qaabkii ay tababarka u dhici lahaa validation-ka waa xilligu dhici lahaa tababarka implement the program waxa laga rabaa inaa hirgeliso programkii evaluation-na marka qiimeynta aan ku sameynaa tababarkeena inuu hagaagay in kale marka needs analyze ka sameynaysid ama aad eegaysid baahidii ma jirto waxa laga rabaa saddexdan qaabood inaad u eegtid waxa laga rabaa horta identify job performance skills needed maxaa shaqadan looga baahan yahay xisaabiyaha shirkadda muxuu u baahan yahay inuu helo xirfad noocee uu u baahan yahay inuu helo si shaqada uu qabsado waxaan eegaynaa marka waxaan ku eegaynaa assess prospective trainees skills waxaan eegaynaa qoliyaha yani tababarka qaadanaya xirfadda ay leeyihiin yani tababarka qoliyaha ay qaadanaya xirfadda ay leeyihiin
iyo xirfadda laga rabo inay helaan markaas waxaan develop gareynaynaa objectiveska waxaan develop gareynaynaa ujeedadii aan tababarka u bixinayno marka halkan instructional designka waxaa laga rabaa inaad qaabkii tababarka u bixi lahaa programkii waxaa ka mid ah inaad workbookskii waxyaalihii lagu shaqeynayay exercise hadday jiraan activities ciyaaraha hadday ay jiraan oo kaleeto inaad ku design gareyso oo casharadii baa design gareynaysaa waxaad design gareynaysaa su-aalihii waxaad design gareynaysaa ciyaartii dhammaantood waxaad design gareynaysaa intaadan tababarkii aanu bilaaban validationka presenting the trainings to a small representative audience waxaa laga rabaa inaad soo bandhigtid waxaa laga rabaa hirgelinteedii يعني xilliga la qaban lahaa qaabkii loo qaban lahaa shaqaalihi inaad kala googoysid oo aad shaqaalihi A iyo B iyo C waxay ku fiican tahay tababarka inuusan ka badan 30 qof inaysan tababarka aad qabanaysid ama haddii shirkad tahay ay qabanayso inuusan 30 qof ka badan marka kala jarjaritaankii iyo yaryareyntii managing the manpower and dividing into groups to get training waxaad maamulaysaa shaqaalaha manpower waa shaqaalaha waxaadna u kala jarjaraysaa qeybo yar implementingna waa hirgelintii actually training the targeted employees groups and improve the need skills to avoid labor turnover in the organization implementing the program waxaa laga rabaa inaad hirgelisid qorshihii aad samaysatay iyo programkii sidee u hirgelinaysaa waxaad u hirgelinaysaa needed skillskii baad markaa aad ku hirgelinaysaa needed skills waxa weeye waa tii aan hadday soo eegno niri need analysis baa la sameynaya ama waxaa la ogaanayaa shaqaalaha skills nooceeya bay u baahan yihiin marka helno skills nooceeya bay u baahan yihiin baa waxaan ogaan karnaa skillskaan u soo bandhigayno sababtaan ugu bandhigayno waxay tahay aan u tababarayno waxay tahay to avoid inaan ka fogaano labor turnover in the organization isbedbedelada shaqaalaha ay ku imaanayso hadiiba yani shaqaale uu bilaabo inuu kaata ku yimaado cilad weyn baa ku imaanaysa evaluation oo qiimeynta ah waxa laga rabaa qiimeynta inaad ku sameyso programka sidee buu noqday successful buu noqday mise failure ma guuleystay mise waa khasaaray waxa laga rabaa feedback channel feedback inaad sameysid yani ardaydii ama tababaradii dadkii qaatay ee shaqaalaha ahaa waa inay warbixin ka soo sameyn karaan waxa laga rabaa ina productivity of workman ina eegto shaqaalihii maxaa iska bedelay waxa laga rabaa improvementiga ina eegto maxaa kordhay maxaa shaqaalihii ay xirfad ka heleen meeshaas waxa laga rabaa ina evaluate gareyso the outcome maxaa ka soo baxay tababarkii aad qabatay ee aad sameysay methodka ama qaabka tababarka loo qaato tababarka waxaa loo qaataa 6 qaybood koo waxaa ka mid ah on the job training shaqadii in dhexdeedii tababar lagu siiyo waxaa ka mid ah off the job training shaqadii adoo aan joogin in tababar lagu siiyo waxaa ka mid ah apprenticeship training waxaa ka mid ah apprenticeship training waxaa la yiraahdaa tababar in lagu siiyo iyadoo la wakiilanayo cid kaleeto informal learning waxaa laga yaabaa tababar in lagu siiyo qaab dadban effective lectures waxaa laga yaabaa in xiisado lagu siiyo waxaa laga yaabaa audio visual basic training in tababarka lagu siiyo qaab maqal muuqaaleed oo tababarka uu ku socdo qof meel fog jooga oo tababarka uu siiyo on the job training waxa weeye having person learn a job by actually doing the job exactly doing the job so qofkii shaqadii saxda ahayd qabanaya buu tababar qaadanaya coaching or understudy waa coaching waxaa la yiraahdaa in inta banaanka laga istaago qofkii la tutuso la dabagalo la yiraahdo sidaan u qabo waxaa laga yaabaa tababarka inuu ku qaato job rotation in shaqadii ahays inta laga bedel meelka loo geeyo si tababar ugu soo qaadateen active learning waxaa laga yaabaa in inta sabuurad la istaago shaqadiina ahaysid halka inta laga sharaxo adigana aad qabanaysid advantages badan bay leedahay waxaa ka mid ah inexpensive ma aha wax qaali ah immediate feedback markii waxa garanaysaa qofka shaqada inuu qabtay uu qaban kara iyo inaanu qaban karin off the job training waxa markii qofka shaqada aanu joogin waxa ka mid ah waxyaalaha loo diray case study-ga
in cases dhacay oo kaleeto inta loo dhiibo la yiraahdo xalkeeda keen. waxaa ka mid ah games management games, waxaa ka mid ah outset seminars dibadda in seminaaro loogu diro, waxaa ka mid ah role plays in qaab maxaan ku dhaha riwaayadeed, qaab riwaayadeed inta la sameeyo shirkadii oo dhan qaab riwaayadeed laga dhigo, in markaa la eego qofka shaqada qof walba shaqadiisa la eego siduu u qabanayo. ardadoo kaleeto ku fiican tahay role playka. behavior modeling in maxaan ku yiraahdaa qof shaqadii qaban karaa dabeecadkii uu ku qaban jiray iyo la eego. apprenticeship training waxa weeye waa procedure qof shaqaale ah oo xirfadii leh in la keeno isagoo shaqadii aan la joogin, la isku daro markaa galaaskii iyo waxaa la isku darayaa iyo shaqadii, yani casharkii iyo shaqadii waa la isku darayaa. qofkaas unbaa wuxuu sharaxayaa qaabkii tababarka loo qaadanayo. informal learning waxa weeye waa waxa ugu badan oo shaqaalaha ay wax ka faa'iidaan. informal learning waxa weeye qofna kuma baraayo, tababar kuma siinayo, laakiin by doing the job exactly waxaa ku ogaanaysaa tababar ku helaysaa. inaad shaqadii qabato unbaad tababar ku helaysaa. effective lectureska waxa weeye markii trainerska qolihii tababarka ay bixinay ay isticmaalaan effective lectures oo powerpoint iska leh, oo iska leh codkii, oo iska leh techniques lagu shaqeynayo, oo iska leh maxaan ku yiraahdaa ii sheeg video shaqadii ah. dhammaan markii inta la isu keeno galaaskan ay dhex fadhiyaan waxa la yiraahdaa effective lecture training. audiovisualka waa maqal muuqaaleed tababar ah. waxaa la rabaa in qof maxaan ku yiraahdaa ii sheeg qaabka loo sameeyo waxay tahay qaab isku xiga sequences. tusaale ahaan inaan tababarkii intaan bilaabo aad daawato oo adigoo TV-ga igala socda oo si toos audiovisual based training waxa weeye qof baa wuxuu ka soo galay tusaale ahaan dalka dibadiisa oo kale South Africa ka soo galay, adna waxay joogtaa Soomaaliya. maadaama Soomaaliya ay joogto isna uu South Africa ka soo galay, galaaskii caadi baa ula socotaa shaqadu sida loo qabanayo, sida shaqadii maxaa kale oo socotay, sida techniques loo adeegsanayo and so on. taasna waxaa la yiraahdaa audiovisual. evaluatingka sida loo qiimeeyo tababarkii. effort badan baa ku baxay tababarka, waxaa la rabaa tababarkii baxay in effortigii uu ku baxay la ogaado. marka waxaan design gareynaynaa study, waxaan eegaynaa timeka ku baxay sidee buu ahaa, waxaan eegaynaa experimentation hadday jiraan waxyaabo la eegaynaa, waxaan eegaynaa maxaan ku yiraahdaa reaction of the trainees, qolihii tababarka qaatay maxay dareemeen, waxaan eegaynaa behaviorkooda maxaa iska bedelay, dabeecadahooda maxaa iska bedelay, waxaan eegaynaa maxaan ka faa'iidnay, results that we achieved, maxay tahay wax aan ka faa'iidnay as a result of the training. tababarkii aan qaadanay kadib maxaan ka faa'iidnay. waa mahadsantihiin. casharka halkaas uu ku egyahay. wixii su'aalaha waana soo weydiin kartaan insha Allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.